wakiilka Soomaaliland u qaabilsan midowga Afrika Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo horena u soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadda Daahir Riyaale Kaahin ayaa sheegay in aan loo baahnayn xilligan in cunaqabataynta hubka laga qaado Soomaaliya waxa uu ugu baaqay shacbiga Soomaaliland inay ka mudaharaadaan cunaqabataynta hubka ee uu sheegay in laga qaadayo dawladda Soomaaliya hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay mar uu maanta ka hadlay munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaraddaasi maanta waxba laga hadlayaa oo weyn oo la geeyay qaramadii midoobay hubkii cunaqabataynta laga qaado Soomaaliya waa wax laga yaabo weeye Soomaaliya maanta hub lagu soo kordhiyo iyo Soomaaliland maaha waayo hubka yaala ayaa Afrika gabigiisaba qayb dhan dumin kara loo baahan Soomaaliland waa inay protest weyn ka samaysaa run ahaantii shacabku waa inuu ka mudaharaada arrinka looma baahan hubka halkaa la keenaa ee maanta dawladda qaar ay la ognahay inay aad ugu xaqlinayaan arrinka oo dagaal ka wadaan waa dawladda aan u turayn magaca Soomaaliba waa arrin ku soo korodhay gobolka waxay noqonaysaa dib hor labay noqonaysaa farahay ka baxaysa taa anigu waxaan leeyahay wasiir oo arrin lagu soo korodhay hadda intii aad hawshan aad ku jirteen ayay socotaaba marka waa inaynu arrinkaa feejignaan weyn ka yeelano Mukhtaar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa.